agabkan caafimaad oo isugu jira oksijiin iyo agabyo kale oo loogu talagalay caabuqa COVID-19 dhaqaatiir iyo dhalinyaro kale ee la socotay ayaa maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado. Qalabkan caafimaad oo ah mid isxilqaan ah isla markaana ay iska soo ururiyeen dhalinyaro, dhaqaatiir iyo ganacsato isugu jira ayaa waxaa loo wadaa isbitaalka magaalada Godinlabe oo maalmihii dambe ay ka jireen kiisaska cudurka COVID-19 oo dad badan ay u dhinteen. qalabkan iyo dhalinyaradii waday ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka socota bahda caafimaadka degmada Cadaado iyo qaar kamid ah dhalinyarada degmada Godinlabe. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiintii iyo dhalinyaradii garoonka ku soo dhaweeyay dhalinyaradii agabkan caafimaad siday. waxaan rabnaa halkan inaan ku soo dhaweyno team gurmad oo soo gurmaday mashaqada ka dhacday ama dhibaatada ka dhacday degmada Godinlabe oo ku saabsan cudurkan COVID-19 dad deegaanka u dhashay oo nooga soo gurmaday xamar ugu horeeyo Dr. Gentleman ayaan ku soo dhaweynaa garoonka magaalada Cadaado oo wada qalab loogu talagalay in lagu caawiyo bukaanada iyo dadka xanuunsan iyo daawooyinba. waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin gurmadkiina waana soo gurmad jirteen oo hadda COVID ma aha markii labaad ayaan u maleynayaa inay tahay. waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay naguma keene dhibaato Ilaahay naga haye wax kastoo dhib oo jirana waa idinku tashanaynaa waana idinku tashanaynaa inaad soo gaari doontaan waa rajaynaynay. waxaan leenahay Ilaahay fadligiisana ugu mahad celinaynaa idinkana waa idin mahad celinaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin gurmadkiina iyo damqashadiina iyo hawsha aad soo qabateen. maalmahana waad nala sii joogi doontaan oo wixii aan rabno inaan isla fududeyn doonaa. runtii halkan maanta waxaan soo istaagnay inaan soo dhaweyno dhalinyarada gurmadka ah ee nooga yimid xamar. dhalinyaradaasoo gurmadkoodu uusan ahayn markii koobaad aan rajaynayno inuusan noqon markii ugu dambeysana uusan noqon. run ahaantii dhalinyaradaas waa dhalinyaro ka tirsan degmadan ama deegaankan ka soo jeeda waxayna ka damqadeen cudurka ka dilaacay deegaamadan gaar ahaan degmada Godinlabe qayladhaantii ka soo yeertay. runtii waxaan rabnaa inaan si cod dheer aan kugu mahad celino aad iyo aad ugu mahadsantihiin qalabka caafimaad oo aad soo gaarsiideen deegaankan. annaguna waxaan rajaynaynaa in maaragtay meelihii ugu habooneed oo ugu tala gasheen aan gaarsiin doono isbitaalkii iyo deegaankiiba aan tagi doono. dadkana waxaan rajaynaynaa in gurmadkan oo kii wasaaradda caafimaadka ka baxsan ee ka yimaada wasaaradda wax ka baxsan kiini ugu horeeyay inuu yahay aad iyo aad ugu mahadsantihiin. run ahaantii horena waa uga soo qayb qaadateen haddeertaanna waad ku mahadsantihiin gurmadkan aad soo gaarsiideen. si aad iyo aad ahaan rabnaa inaan kaga mahad celino dadka deegaankana waxaan rajaynaynaa in maaragtay wacyigelinta iyo maaragtay qalabka aad wadaanba ay ka faa'iido doonaan. magacayga waa Cabdinaasir Cali Maxamed waxaan ahay gudoomiyaha dhalinyarada Godinlabe. waxaan meeshaan u nimid maanta in aan soo dhaweyno dhalinyarada nooga timid Muqdisho oo u timid in ay wax ka qabtaan oo ay caawiyaan dadka walaalahooda ah oo reer Godinlabe oo maalmahan oo farabaan ku hayay cudurka COVID-19. waxaan rabaa markaan u mahad celiyo dhammaan intii aan isla soo dhaweynay. waxaa joogta dhalinyaradii Godinlabe oo u timid inay soo dhaweeyaan dhalinyaradan walaaleen ah oo noogu yimid inay caawiyaan. waxaa kaloo yimid isku duwaha caafimaadka Cabdi Forjaawe, agaasimaha guud ee wasaaradda dastuurka Cumar Dhagayare iyo rag kale oo tiro badan. marka waxaan rabnaa inaan aad iyo aad ugu mahad celino waa xilli soona oo qoraxda la taagan yahay. marka waxaan leenahay soo dhawaada. runtii wuxuu ahayd safarkeen wuxuu ahaa safar la xiriira dhanka gurmadka musiibada ka dhacday degmada Godinlabe. wax weyn ma aan keenin laakiin waxaan wadnaa agab caafimaad iyo daawo yar oo isleenahay waa dhiig joojin oo hordhac ah. sidoo kale waxaan rabnaa inaan dhalinyarada wacyigelinta ka wada degmada Godinlabe iyo deegaanada hoos yimaada inaan caawino oo ayagana aan ka caawino wacyigelinta oo dhiirigelino. ujeedadana intaas ahayd. waxaan rabnaa halkan inaan uga mahad celino agabkan dadkii muxsiniinta ahaa oo ku soo deeqay oo runtii markaan u geynay fariinta sida dhaqsaha leh nooga jawaabay oo ugu horeeyo Dr. Cabdulaahi Axmed Abtidoon oo ku xigo oo mishin noogu deeqay mishinada amaanta wadna kamid ah oo uu kamid yahay Dr. Taaliil Cabdi Afrax oo asagana mishin dhabal ah oo mishinada maanta wadno kamid ah ama oksijiinada noogu deeqay iyo guud ahaan dadkii qaaraanka aan ka qaadnay oo dawadan yar iyo agabka yar wadna aan ku soo iibinay. waxaan leenahay fariintii aan garanaysaa aan idin keenay oo aad ka jawaabteen
maanta waxa ay gaartay meeshii loogu talagalay. maalmihii la soo dhaafay ayaa isbitaalka guud ee degmada Godinlabe waxaa caabuqa COVID-19 ugu geeriyooday in ka badan 10 ruux. Haashim Cumar Xasan, telefishinka FF Somali TV, magaalada Cadaado.